boqolaal dadweyne ah ayaa isugu tagay garoonka Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo si ay u ogaan salaada Ciidul Adha. madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay weeliyaan qaar ka tirsan labadiisa gole ayaa iyaguna ka qayb galay salaada Ciidul Adha ee lagu tukaday garoonka. markii salaada la tukaday ayuu madaxweynaha Koonfur Galbeed la hadlay dadweynaha waxa uuna ugu hambalyeeyay munaasabada Ciidul Adha. kadibna waxa uu ka hadlay dawladnimada wanaaga ay leedahay iyo in xoogga la saaro amniga isagoo ku hoga tusaaleeyay meel aan amni ka jirin inay tahay meel aysan ka jirin nolol iyo sugnaasho. والحمو دم كره مرايان runtii wala isoogiyo saas dartii ummada islaamka initial dambeyntii dawladnimada la qadariyo inay iska sabro walaalo wala kala kulmo inay iska sabro dawladnimadana la xajiyo hadii dawladnimo la helo lan walba dhibaato ku baahay dad badan oo madada fiirida dhaqansho inay dawladnimo ku obsadayaan oo initial dambeyn ku obsadayaan dareesho ka geliya jir hadii dhaanka la fiiriyo marka dawladnimada la booliis haysada ku badan hele lan walba la suuray eesi ku feelan lagada in dawladnimada ka dadaalnaan shil dambeyn ka dadaalnaan si ixtiraamna hadii unay dawladnimo la hela wadankan sidii hada jari wal gorda meel u saadina tan walwali marka wadankeena suuna ilaahay inago oo haan dawladiidka ee dhibaatada oo geedka ku dhaqado waaysiin ummadu ku dhaqado waaysiin jiditeelu ku maro waaysiin in ilaahay noo qabado ونون اسكو قبنا runtii ciidamada nabadda ka shaqeeya ilaahay nabadda suugu koreen aan nabadda suugu hay ciidanka mahadnaga oo amisom ka horeeyay military iyo booliis iyo nabad sugid iyo Koonfur Galbeed ciidansha dhamaantiyo iyo dadweynaha nabadda jeel oo nabadda kala shaqeeya marka ciidamada nabadda kala shaqeeyna oo nabad la hela nabadda naas nuugule una dhanbar waa qawana ummaduntan eediyada dawladda oo xoog badan soo ayna ay hay'adaha Soomaaliya Afrika atin waliba dirnay dad tabaran lahayna oo xaalad iyo meel iyo tideereen marka si uu hanka naga fadni meel uu dawladnimada hay'adda ka deersii fadni horanka dareero fadni wadankan inuu deersina dhamaantan dawladnimada ka dadaalnaa shal dambeynta ka dadaalnaa marka eedada waasintiin ilaahayna toognan faataada marnan in ilaahay dawladnimo iyo deganaanshiyo nabadi caafimaad ilaahayna si mar faataada marnan yidi fadlan ilaahay dambiga iska dhaaf. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laba kamid ah dadweynihii ka soo qayb galay tukashada salaada Ciidul Adha ayaa markii ay ka baxeen salaada waxa ay la qaybsadeen bulshada Soomaaliyeed farxadda ciida shucuubta islaamka meel kasta ay joogaan iyagoona ugu hambalyeeyay munaasabada Ciidul Adha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا كنت بلعب مجاعي عبد الله محمد حسين مجاعي دل نوشة waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay markii ugu horeysay aan ku tukado salaada Ciidul Adha ee magaalada Baydhabo stadiumkeeda waxay maanta waxay ahayd jawi aad u qurux badan waxaan nagula soo tukaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan ka mid noqdo dadka ku soo tukaday stadiumka Baydhabo waxaan halkaan ka salaamahay hooyadii macaan mushkiilto maamulkiisa iyo aabo iyo dhamaan asxaabta oo salaamada dhamaantood. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aniga magacayga la yiraahdo Yusuf Aad Basmaan Xadir. waxaan joognaa magaalada Baydhabo qaasatan Dr. Ayub Stadium. aad iyo aad u faraxsanahay muslimiinta meel walba joogaan waxaan leeyahay mubaarak antum bil khayr. ciidan waa ciid fiican sida malayna waa dugantahay ciidan waa ku dugantahay ما شاء الله حقه وحني ماشي أنا حق سلامة يا أبي علي إلهي يا أبي ولا علي من الوجود جيران رأيين سلامي قاسة واحد من سلامي واحد سلامي المسلمين من الوجود جيران وحق سلامي سلام كتب وقتشي لاتا وحنا نقول له عيد مبارك عيد مبارك عنك. مناسبة عيد الأضحى يا دبل دقيقة سفي عن رسول الله مالين تهدي كواد لما دون الإسلام كا بلشة Baydhabo كل قرن قيب كتهاي waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo isugu hambalyeynaya farxadda iyo damaashaad ciyaal iyo caruur xiran dhar cusayb ah adarka udgoonkana uu ka soo cartamayo ayaa isku lahaa Ciidul Adha ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr.